ummadda Soomaaliyeed waligeed ayada ay quraanka wadan jirtay waabka oo lagu dhisaayo oo dugsi quraanka ah oo geedaha ah ayaga samaysan jiray madaaris markii la sameeyayna ayaga ayaa wata cid banaanka ay uga sugayaan ma jirto hadii ay jiri lahayd quraanka kaalinta koowaad ee caalamka aynu kaga jirno ma aynan kaga jirneen marka jazaakumullahu khayran musaabaqaadkan iyo musaabaqaadka dawliga ummadda Soomaaliyeed ayaga oo يعني باسبورة كلا دوان وتأكل جوليسنا أيام وعلامات صومالي أيلا هاي ولاد عرب أو كهلا إنه وحوري أنت هسي إن ما أنت أو مسابقة أنت اللي قبت الدولة كلا دوان لا قبته هذانا دتك الدولة هاس كلا دوان كلا ترتمع صوب حياة أيهين ويل الصوماليات يقبل الصوماليات صرت هسي وحنفلا يوري إخلاص كده حياة أو ياشيني هراء الصومالي دعها القرآن كجعلا barakadoodii ayaa caruurtoodan ilaa hadda ay saas kaalinta ugu siiyeen marka sharaf ay noo tahay in aan calaamad ku noqono quraanka anu Suudaan wax ku bartay oo jaamacad aan ka dhigan jiray waxaan eegay jaamacad la jaamacatul quraan al-kariim wal ulum al-islaamiyya quraanka saddexdii sanaba saddex juz ayaa muqarrar ahayd marka la soo galaayo saddex juz la iska rabaa inta lagu jira 4 sano ahna sanadkiiba saddex juz وانا كليات كلا او ما كليه القران او كلمه كليه الشريعه نغنيني صدح حساب مقرن ugu ahay Soomaalida markaan nahay quraanka markii oo warqadna waa lagu galaa imtixaanka shafawina waa la iska qaadaa macallimiinta meel fariistaan ee muqarrarka saddexda juz ah ayay ku leeyihiin kol meel kaaga soo bilaabayana ka soo bax Suudaanta aan wax la baranayna oo saaxiibadeen ah quraanka markaan la joogo Soomaalida wayna yaqaaneen waxaan dhigi jireen marka idinku naga horeeya quraanka imtixaankiisa Soomaalida daatiin macallimiintu markay daalaan oo idinka aad uga soo baxdaan hadhow su'aal yar yar ayna weydiin doonaane horta idinku gala marka jidkan furi jirnaa annaga haddaan Soomaalina markaas marka macallinka hor fariisan wuxuu leeyahay xafidta al-muqarrar halkaas kaga bilaabi saddexdii juz ma soo xifdisay xafidta al-muqarrar markaas waxa la leeyahay muqarrar shinu ya akhi shinu Suudaanta muqarrar shinu ya akhi nahfad al-quraan kullahu markaas tahfaduna al-quraan kullahu na'am hal aw ku weydiina ama labo iska buxu kule markaas asaasan calaamad uga ahayn Suudaanka waxa sameeyay jireen saaxiibadan quraanku ku adkaa waxay sameeyaan marka qaarkood meelaha hore ee maqrada la yiraahdo ayay soo xifdinayaan shanta aayadood ee ugu horeysa hadii gudaha loo sii galo mushkilad ka imaanayso mid waxaan xustaa maalin marka wuxuu imtixaanku galay asoo wareersan oo ka soo baxay markaas aan kayfa kaara imtixaanka ka waran suul wax lagu weydiiyay markaas yiri ya akhi wallahi al-imtixaan al-layla كان صعب شديد جاب لي من جوا قدوه إيجا كان كلها يعني وحور ربي إن لو قبل الله أفتطمعون قبل إلا دامرك أو أفتطمعون أن يبنوا لكم وقد كان فريق من يسمعونك صدح آيات كعبت مركز وحلاقة صوب بالله واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان انتهى كيف الامتحان جاب لي من جوا قدوه إيجا كانوا دايما مقرر أكتر يجمونكين مركز سوماليو أما قدها هاللوغا كانوا أما بنانك هاللوغا كانوا تاريخ من القرآن كلهين مالوا البنى دونك واساس marka dalika fadlullahi yutihi man yasha marka culimada ka shaqeynaysa oo musaabaqooyinkan qaban qaabinaysa oo khudamada quraanka ah sharaf ay ummadana ku dhaxleeyeen ilaahay agtiisana sharaf ayaan uga rajaynaynaa maxaa yeelay khayrukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu aad yaada umahsantiin idinku dheeraynin raalina ahaado marka qaarkood in musaabaqaadka intii la qabto meeshan la imaadana way fiican tahay maanta adduunku wuxuu noqday hal qol oo kaliya walaal badeecadeeda ay soo bandhiganaysa waxa maanta lagu tartamayo ee la kala qabsanayo waxa ugu muhiimsan uquusha dadka iyo maskaxda dadka bariga dhulalka la kala qabsan jiray oo la isku duulduuli jiray muslimiintu marna way iska celin jireen marna waa la jibin jiray marna way guulaysan jireen al-harbu sajjalun yawmun laka wa yawmun alayka ayuu ahaa laakiin markii taas waxba looga qaadi waayay ya arinta loo bedelo waxa la yiri dhanka maskaxda arintu ha u wareegto markaas waxa loo soo waray islaamkii inuu noloshaan la socon karin oo dib u dhac uu ku yahay marka in la muujiyo diinteennana waan haysanaa nafsiyaadka dadkeennana waan ilaalinaynaa gabdhaheena takriimka la karaameynayana quraankaana baree wax meel kale ay nalooga keenayo ma aha rag iyo haweenkana sida ay u dhigayaan dadka aan muslimka ahayn ma aha laba group oo kubad wada ciyaaraysa oo midba midka kale inuu ka guuleysto uu raadinayo ma aha ee waxay yihiin hal group oo hal dhinac ka soo wada jeeda oo hal ujeedo oo ilaahay cibaadadiisa wada xaqiijinaya saasa ilaahay wuxuu leeyahay markii rag iyo haweenka la isku garab wado markii rag la sheego gabdhiina way la socdaan
أو مركي مثلا إن المسلمين مركي لهذا والمسلمات أيا لهذا ذاتك النحو آخر السنة ويوجينا واو ومركي الإسكو عطفه لا بدو قف ويسلا السعودان هذه لكن ثم لديه لها ويكل هرمر لهاين أو لديه مثلا جاء زيد ثم عمرو هذه لديه لها زيد إماذي كذب أي عمرو إماذي لكن مركي جاء زيد وعمرو مركي لهذا ويسلا السعودين وهي معناه مركز القرآن يقول إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما مركا كاسن أسعنا أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما مركا رنتي مؤسسة سوق قابسة مسابقة اقرأ يعد كستو أو قيب كان نقطي أو والدين تنا أي كم دين ويكون مهتسيين